عانه oo de Soomaali oo dhami ay taqaano in badan baa wareysanay marka wuxuu ahaa nin xagga samataliska iyo xagga isu soo dhaweynta iyo dib u heshiisiinta caan ku ahaa taariikh dheer ayuu leeyahay mar aan wareysanay aniga Mary Harvard oo ka diyaarinay taariikhdiisa 2012 wuxuu sheegay in uu dhashay 1898 marka 121 jir ayuu marka maanta ku geeriyooday Ilaahay u naxariisto Xaaji Cabdi Waraabi wuxuu noo sheegay inuu ku soo barbaaray yaraantiisii miyiga oo isla mar ahaantaasina uu ku dhashay halka imaka airportka magaalada Hargeysa uu ku yaalo waxauna uu sheegay inuu wax badan uu soo joogay oo caaqilnimada beeshiisana loo xil saaray markaasi 1940 iyadoo markaasi uu sheegay in qofka caaqilnimada loo dooranayo in aad loo eegi jiray kartidiisa iyo marka xagga nabadda iyo waxaana uu ka sheekeeyay xagga Waraabe ama Cabdi Waraabe sababta loogu bixiyay naanaystaasi in ay ahayd iyadoo oo uu gal jiray yahay oo uu kuray yahay oo geeli lagaga tagay dabadeetana geeli laga dhacay dabadeetana uu ka hadhi waayo qori yar oo uu sitay isagoo 12 jir ah 12 meelaha dabadeetana uu ragii ka soo dhiciyay geeli dabadeetana nimankii inta ka yaaceen ay yiraahdeen warkani waa Waraabe waxaana uu sheegay Xaaji Cabdi Waraabe in sababaha isaga oo yar marka caaqilnimada ay beeshiisu markaasi ay ugu dooratay waqtigaas oo dhaqanka Soomaalidu aad u adka ay ahayd isaga oo inta laba nin la raaciyo aabihii beel kale oo dishay ayaa dabadeetana la yiri ordo soo dil dadna waxay u tageen ninkii gurigiisii oo dabadeetana roob ay uu sooriyay roobkii uu ka soo galiyay gurigiisii hadda waa ninku doonayay inuu dilo Cabdi Waraabi sidoo uu sheegayo dabadeetana markii roobkii daroortii uu masalihiisii madaxa ka saaray dabadeetana markii dambe uu nimankii ku yiri xabadiyo hadda ugu jirta qoryaha uu yiri ninkan ma dilayno sababtoo waxay tahay ninka sida inoo sooriyay sida inoo wanaajiyay ma dili karno dadna halkaasi gabadh lagu sii halkaasi reerina dabeetana ay aad ugu heshiiyeen taasi ayaa loo tixraacay marka Xaaji Cabdi Waraabe in badan ayuu dabeetana dad ku kala hagoogtay beela iyo dhibaatooyin iyo wuxuu la soo shaqeeyay sidoo uu sheegay in laga soo bilaabo 1960 in madaxweynaha Soomaaliya Allah u naxariisto aadan Cabdullaahi Cusmaan aadan Cadde in Cabdirashiid Ali Sharmaarke Maxamed Siyaad Barre Soomaaliland wuxuu la soo shaqeeyay Cabdiraxmaan Axmed Cali Cabdiraxmaan Tuur Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal Daahir Riyaale Kaahin Axmed Maxamed Siilaanyo iyo madaxweynaha hadda Muuse Biixi Abdi waxaan ku xusuustaa Xaaji Cabdi Waraabe Ilaahay u naxariistay oo deeyma kon goor dhaweyto geeriyooday oo magaalada oo dhamay dareemayso magaalada Hargeysa in aad u hadal cadaa oo xataa madaxweynayaasha markay meel soo joogsato uu oran jiray war aamu saasan u garanay guurtu ay garatay sida raac oo dadna cid waliba marka madaxweyne kasta intii Soomaaliland dib u heshiisiinteeda go'aanka Xaaji Cabdi Waraabe uu dabadeetana uu soo saaray wada raaci jiray maama baana jirta halkan caanka oo la yiraahdo Soomaaliland waxa ay dheertahay Soomaalida kale Xaaji Cabdi Waraabe Ilaahay u naxariisto kaasi wuxuu ahaa Axmed Saciid Cige oo khadka taleefanka ugu waramayay Axmed Mursal taariikhnololeedka Xaaji Cabdi Kariim Xuseen Xaaji Cabdi Waraabe Allah u naxariiste oo maanta ku geeriyooday magaalada Hargeysa anaguna hadana bahda BBC waxaan leenahay Allah u naxariisto samir iimaan Allah anaga wada siiyo